السلام عليكم. soo dhawaada. waxaan rajeynayaa maalintaada inay kuu noqoto maalin qurux badan. waxaan ka hadli doonaa maanta maxaa sababa dhiig la'aanta ku dhacda ilmaha, waa maxay sababaha keeno, maxaa calaamadaha lagu gartaa iyo see u daaweyn kartaa ama uga hortagi kartaa inuu cunugaaga ku dhaco dhiig la'aantan ama anemiyada. sababaha badan way badan yihiin laakiin insha Allah waxaan soo koobi doonaa inta maxaa la dhahaa caadi ahaan ah wixii cudur sababo waa gooni laakiin inta caadi ahaan sababto maxaa la dhahaa oo hooyada ay fahmi karto inay ku soo koobariyahan. tan koowaad waxaa sababto naasnuujinta xilliga dheer ah. لأن naasnuujinta diintu waxay dhahay ilaa ay cunuga 2 sano hala nuujiyo laakiin sax waa ilaa 2 sano diintu way nafarto faa'iidooyin badan ku jira laakiin waxaa jirto 6 bilood u horeyso maxaa la hanaas hooyada waxa la socoto bir ku filan cunuga jirkiisa caanaha la socoto laakiin 6 bilood u horeyso markay dhamaato maxaa la naaska caanihiisa faa'iidadiisa oo wata iyo dhamaan wixii loogu tala galay laakiin waxa yaraatay birtu loogu tala galay maxaa la in cunuga naaska ka helo ayaa yaraatay 6 bilood markuu cunuga naasnuugo. marka dabeecada waxay tahay qofka cunuga markuu 6 bilood gaaro in loo bilaabo cunto. لأن 6 bilood u horeyso cunuga cunto ma cuni kariyo xigmad rabbaani ah waa in cunuga birtu oo u baahnaa in naaska ay ugu jirto si cunuga dhiig la'aan aysan ugu dhicin laakiin markuu 6 bilood gaaro waa in cunto loogu daraa لأن naaska birtiisa ay yaraatay laakiin faa'iidooyinkiisa kala dhan way joogan. markii inay hooyooyinka dhan cunuga naas nuuga waxba uma baahno oo ilaa 2 sano naas bas ay ku geeyaan badar dhan asaas ay u siinaan laga yaaba ama haday siiyaan maxaa la cunto aan amsanin oo markay cunayso laga yaabo in afku geliso marna iska ilowdo taasoo kale cunuga dhiig la'aan ay ku keentaa. tan kale dhiig la'aan ilmaha ku keenta waxa waaye in cuntooyinka birta ku yartahay ilmaha ay qaataan oo maxaa la soo u taqdiya laha cunto xumiyo kale waaye leeyahay cunto isku dheelitiran ma la siinin cunuga cuntooyinka cunay in laga fiiriyo waa maadada birta ma ugu jirtaa cuntooyinka cunuga qaadahayo kale bir inaysan ku jirnaan laga yaabaa. waxa kale oo sababi kara gooryaanada keenan sida gooryaanka kale iskariska kale iyo noocyo kale keena way jiraan marka gooryaanada dhiig la'aan ay keenan hadii cunuga gooryaani waxa ku aragto waxa wanaagsan sidoo dhaqsiyaha badan inaad ka daaweysid. waxa kale oo keeni kara in maxaa la cudurro soo laabto kale oo sida inuu cunuga ciridka ka dhiigo kale ama maxaa la meel uu ka salka dadka ilmaha qaar sanka ka dhiigo ku ciridka ka dhiigan marka dhiigas inuu soo laabtay ama marka uu dhiigayo oo kale inuu kimiye ama xad badan uu dhiigo ama dhiigi uu yahay mid soo laabahayo kale cunuga asigan dhiig la'aan ku keena. marka intan waxaan rajahay inay tahay intii hooyada iyo maxaa la cunuga isku fahmi karin inay naqato waxyaalaha kale waxyaalo xagga cudurrada la xiriiro oo laga yaabo inay maxaa la ku wareertid. marka calaamadaha lagu arki karo maxaa waaye calaamadaha lagu arki karo waxa waaye inuu cunuga shaaxib ka noqdo faruuriyaha indhaha cidiyaha kale ka dareemi kartaa oo kale inuu cunuga maxaa la cashan cadaan oo ka noqdo sababtoo ah dhiiga ilmaha bani'aadamka qofka bani'aadamka dhiigiisa waxa ku jira maado loo yaqaan hemoglobin marka hemoglobinta jirka ay ku yaraato waxay sababay indhaha cidiyaha iyo faruuriyaha inay cadaadaan. waxa kale oo imaan karto maxaa la garaaca wadnaha kale inuu siyaado oo garaaca wadnaha cunuga uu xooli ku shaqeeyo kale waxa kale oo imaan karto inuu cunuga waxba qabo waayo kale oo markuu haduu ciyaari lahayo kale haduu iskuul waxbarasho dhigto kale inay ku imaatay in cunuga maxaa la uu daalo oo juhud iyo maxaa la tamar fiican uu bixin waayo oo ku arki kartaa. tan xigto lagu arki karo waxa waaye in timaha ka daataan hadii cunuga wiiliga ama gabadhiyo kale timaha daadaha ayaa ku arki kartaa. waxa kale ku arki kartaa cunuga inuu appetite ka xirmo oo cunto u qaadan waayo oo maxaa la cuntooyinka iska diidayo kale oo cuni karin ku arki kartaa. waxa kale oo ku arki kartaa maxaa la inuu cunuga uu yeelanayo kale wareer inuu keeno ku arki kartaa. ama waxa arki kartaa oo kale calaamad ugu dambeeyay lagu arki karo ay tahay in cunuga ku aragtid waxyaalaha qariib ah soo cunayo kale sida carrada soo cunayo asoo dhuxul raadiyayo asoo waxyaalo macquul aan ahayn oo kale cunuga soo raadiyayo cunayo ku arki doontaa. marka carrada soo cunayo kale badan u keeni kartaa oo kale maxaa la sida inuu gooryaanada tusin qabin oo kale laga yaabo inuu hadii ku hodan ku bilowdaan liana ukumaha waxay la socdaan wasaqdaas ku dhex jiraan marka ilmaha markii dhiig la'aan hayso kale carrooyinkaas iyo dhagxaha inay ruugaan iyo maxaa la dhuxulaha iyo waxaas ay bilaabayaan waxyaalo qariib ah xaagad qariib ah asoo cunaya ku arkay. marka see loo daaweynaa daawada horta hor intaan la gaarin daawada isbitaalka iyo kii dhakhtarka ku siin lahaa intaan la gaarin
لو حاجة تقاب أنت أهان هو لو داويو المها ديجل أنت أماني ميدا قبل وأنت أكو داويس أنت دي لو لو كلا قاعدة هو كلا إن محل لها در أهان أو داويسد إن حول أهان وداويسد أنا غني سيد حول أهان كو داويني سيد وكلا أنتوين كبرت أكو بدن تا حولها لقيها إن سيد وكلا واي سيد هليب كجدودن باركة كليه وكلا محل لها وطنها تطعونها جرأ سجنا وليه برفي عنها كجرته مركا حاجة إن maadada birta ah xayawaanada laga helo hilibka gaduudan oo kale way ku jirtaa baarka ku jirtaa kaliya ku jirtaa wadnaha kale way ku jiraa intaas ina cunuga siisid oo maxaa la aad joogto ugu dhigtay oo kale maadada birta ku badan xagga dhirta oo kale meesha ku jirto waxa kamid ah malabka badow oo kale uu ku jiraa birta way ka buuxdaa timirta oo kale bir fiican ay leedahay موسكو كلا برفي عنه ليه هاي تفاحة برفي عنه كجرته مركو حاول أحسن إن عنتوي كسنبات هذا كيها أوروناتي ديرته كلا بروي كجرته ويكويرته هاي لكن إن سيسيدا في عن أو لين قدرتي سبرت ديرته كجرته وعنه جوجا فائدته لا قروح بدن مركا لباس عن عنتها وجوده وين كرتا أو إن دنكي حوالي لأدينا من دنكي درت لأديد labadaas bay ku filnaahay marka waxa kala jirto waxay laba shay oo kala jirto cunuga ay tahay inay ka ilaalisid wax maxaa lahaa mid u sameeyay midna waa ka ilaalihay tan kuwaad oo kale waxa waaye waxa siinay oo kale marka cunugaas dhiiglaan u heeso kale oo aragtid ina baar iyo kili iyo aasi sidoo kale cunuga waxa wanaagsan in inaan ugu meertid si birti ku jirto cuntadaas maxaa lahaa jirka uu si fiican u nuugo oo isla markaana cunuga jirkiisa uga faa'iideysto ضعفنimada iyo tabardarrada aysan ku sii dheeraanin marka wax walba ay noqoto kale hadaad maxaa lahaa moosiinaysid hadaad tufaax siinaysid oo kale hadii baarkaas iyo kaliyihi iyo hilibkii guduudnaa iyo waxaas ay siinaysid oo kale inaan ugu meertid vitamin C ku jirto vitamin C gaas waxay keenay in cunuga maxaa lahaa birti cuntadii birta lahayd ay siinaysid inuu jirka birta si la rabo ugu faa'iideysto keenay oo cunuga isbedel insha Allah xilli hore ay adeentid waxa kale oo jirto maxaa lahaa waxa jira oo la yiraahdo tanic acid maadada la jirta caleenta shaaha ku jirta marka shaahan oo kale cunuga markuu asaga dhan maxaa lahaa anemia ahayo kale anemia ayada guud ahaan waxa keento noocyo badan ay leedahay laakiin nooca ugu badan hadirtan waxa keeno in maxaa lahaa birti ay ku yaraato cunuga jirkiisa marka maadadan tanic acidka markuu qofka jirkiisa uu ku jiro jirka maxaa lahaa birti ku jirta lama nuugi karo oo jirka ma ka faa'iideysan karo cuntadan aan qaadata birti ku jirta ma ka faa'iideysan kara hadii aad shaah la qaadatid liana caleenta shaaha waxa ku jirto maadada loo yaqaan tanic acid marka hadii cunuga hadda ka soo qaad beera uu ku sameeyay caani shaaha isugu dartay farta ka saartay beera uu kala soo xalaga yaaba dhiig la'aan inay ka heesay waxa isleedahay marka cunuga xoogo dhiig la'aanta wixii uu ka soo kaba doona liana caleesha maxaa lahaa baari iyo kili waxa uu karasay wax uu ka faa'iiday malahan liana caleetan tanic acid maadada laha ku jirto maadadana waxay sababay jirka in maxaa lahaa birtu ku jirto ka faa'iideysan waayo wax yar kadibna waxa laga yaabaa inay saxarada la raacsiyo maadada cunuga jirkiisa soo ka faa'iideysan inay toos saxarada u raacda laga yaabaa marka waxa wanaagsan hadii aad shaah ka maarmin in cunuga sidoo kale maxaa lahaa dabeecad ay ku tahay waxa la marka cuntada cuno oo 2 saacadood oo jooga kadib inay sida fiican shaahana guud ahaan ma fiicno ilmaha 6 sano intee ka yihiin wax shaaha barkid ma fiicno liana ma xamil kara jirkooda maadada tanic acidka shaaha jirkooda ma adkeysan kara marka cunto kasta ay qaataan bir ku jirta toos u dhaafay saxaradaas ay raacay marka waxa haboon maxaa in hooyada oo hadii ay cunug 6 sano ka yar ay haysato in shaah dhanba ay san ilmaha iska barinin liana maxaa lahaa uma fiicin xataa dadka waaweyn oo kale markii aad ka soo qaad hilib iyo baar iyo kili iyo maxaa lahaa qudaar fiican oo isleedahay tan qudaartan xoogo caafimaadka u fiican tahay ilmaha ama dadka waaweyn u fiican tahay isleedahay waxba shaaha ku qaadanin hadii shaaha aan ka maarmeynin 2 saacadood kadib marka cuntada ay cuntada 2 saacadood laga soo wareeyo kadib qaado waa mar jirka uu ka faa'iideystay birti iyo maxaa lahaa wixii wanaagahay oo ku jira cuntadaas ay qaadatay mar jirka ka faa'iideystay kadib markaas hadii cabtido kale waxa laga yaabaa wax saas inay sakeenin waa 2 saacadood kadib marka cuntada cuntid saas wanaagsan إن شاء الله marka intaan ku soo gabagabeynaa muuqaalka waxa rajeenaa inay ka faa'iideysan doontaan soo dhawaada hadii aad ku cusub tahay groupka subscribe noo saar kambalka furo hadaa hore noo joogtan like share si dad badan ay ugu sii faa'iideystaan hooyooyin badan marka soo dhawaada